السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي لا كل ما يزور فيديو كان وهويو dhibaateysan hooyo dhibaateysan hooyada maxay u baahan tahay in laga garab istaago waa hooyo 6 ciyaal laga qaatay ku nool magaalada Norway hadaan isku nixin ama aan isku naxariisanin codkan meel dheer aan gaarsiinin yaa kaloo gaarsiinayo please video codsi waaye bilow ilaa dhamaad dhageyso oo dhameyso iyo ku dhaafin la soco videogan insha Allah ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ذات كوجعلهي دمانتين marka hore waa in wada salaamay meel walba adduunka dacaladiisa ka wada joogtaan channelkan waa channelkiina aniga waa Shams Xasan heena ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba channelkan idinka ayaa iskale aniga maamulo ayaan ka ahay dhammaantiin waxaan idin leeyahay gacmo furan iyo qalbi nadiif ah iyo niyad saafiya ku soo dhawaada maanta Shams way timid maxay noo sidaa waa qiso murugadeeda xambaarsan dhibaatadeedana sidata dhibaatada iska haysato hooyooyinka ku nool wadanka qurbaha dhibaatada maxay tahay la soo gudboonaatay maxay tahay problemka haysto maxay tahay hooyadan dhibaatada haysato ee la murugaysan tahay ee la xanuunsan tahay ee sariir la saaran tahay subhanallah waxaan idin leeyahay asxaabteedan hooyadan u soo duceeya in ilaahay oolaadeeda dib ugu soo celiyo gacanteeda ee u soo galaan cid kale may dacweynin cid kale dacwada kumay oogin ninkeeda ayaa ku oogay ninkeeda ayaa dacweeyay ninkeedii ayaa dhibaato ku furay ninkeedii ayaa barbaleen ku abuuray intee isqabsadeen family barbaleen dhexdooda ah waa la isdilay markii la isdilana maxaa la sugayaa waa wada taqaanin dhammaysa videogan bilow ilaa dhamaad sidaad u daawataan ama aad u aragtaan asxaabteeda insha Allah ta'ala hooyadan waa gabar Soomaaliyeed waa hooyo Soomaaliyeed waxay ku nooshahay wadankan Yurub meel kamida gaar ahaan Norway ayay ku nooshahay Allah dhaafaan leenahay iyada iyo oolaadeedana ilaahay kuwii dib u midoobo Allah ka dhigo hooyada waxay tiri 6 caruur ayaa laga qaatay kan ugu yar jiro 2 sano 6 ciyaal kan ugu yar duwaano 2 sano ayuu jiraa waa xanuunkeeda leedahay waxay tiri guri weyn aan deganahay dhahday alxamdulillah wax iga halaysan ma lahan dhahday waa aan shaqaystaa ilaahay baan oo taas uga mahad celinayaa ay tiri laakiin maanta dhibaatada i haystay dhahday mid yar ma aha waxaan dhihi jiray tiri hooyooyinkan maxay tahay maxaa ilmaha la iskaga qaataa maxaa keeno maxay tahay dhibaatada waxa dhibaatada keeno waxay tahay dhahday isfaham darada ka dhex dhalato familkee dhahday hooyada iyo aabaha isma qalwaan in la isdhageysan waayo in la ismaqli waayo in ilmihii korkooda lagu hadlo ama lagu doodo ama lagu murmo la isku qabsado dhibaatada taas ayay ka bilaabatay ilmihii yaryara 9 waxay tiri waan isku qeylinaa hadii xaqiiqada aan ka hadlay dhahday anigii aabaha bay tiri 9 waa isku qeylinaa hay tiri waan is cunaayay tiri qeyladeena faraha ka badatay tiri buuqeena xad ka dhaafay dhahday gacana isku geysanaa hay tiri ilmaha meesha fadhiyaan hay tiri ilma fadhiya xataa maba naqaanay dhahday wuu soo galayaa hay tiri qeyl oo bilaabayaa hay tiri annaka ma roonaanin hay tiri tuu sameeytiisa kala sameeyay dhahday hore Soomaali waxay ugu maamaaday haddaana la kala roonaanin roomado waxay tiri ilmaha heysata ninkan uu baxaa wuuna soo galay ha ku dayan xataa marna ma aan isdhihinay tiri ku dhaho kiisi kala ka daba dhahaayay tiri hadalkoo dhaho hadalkiisi kala oo dul saaraayay tiri wuxuu soo tuur wixiisi kala ugu bedelaayay tiri jixinjixo meesha mataalo oolaadi marka dhaxday ka baxday dhibaatada tan koowaad ee qabsatay tiri waxay tahay dhahday ilmihii ayaa dhaxda ka baxay dhahday subhanallah waan ismaqli weynay tiri waan isdhageysan weynay tiri dhibaatada tan taagan waxay tiri ismaqal darrida iyo isfaham la'aanta keentay dhahday ninkan waxay tiri markii hore waxay tiri 6 ciyaal ah alla isiiyay tiri oo ilaahaba iiga qoray tiri inaan 6 ciyaal iska dhalnay tiri intaasna aan wada joognay tiri marka hore waxay tiri ma si jecel mas'uulinay tiri labada qof markay jecel isku guursadaan tiri dhibaato walbana iyo wax walba soo maray tiri dhan ay iska qabsadaan gacmaha midoobaan ween isqabsadaan tiri weena ka gudbaan weena ka baxaan tiri waa ayaga isxaliyo laakiin waxay tiri ninkan anigoo yar ayaa aabahay iyo hooyadeeba igu dareen bilis horta taas aniga waxaan ka codsanayaa gabdhaha yaryar ama odayaalaha la isku daraayo oon isdabeecad keenaynin aan isfahmaynin ka daaya bilis uudkiina fahma reero
ilmihiina inaad fahantaan wax ka fiican ma lahan. ilmihiina inaad ogaataan ama aad dareentaan ama aad dhagaysataan wax ka qurux badan ma lahan. ma aha marka ninka weyn inaad gabadhaada ku darto, nin kasii cararaaya inaad ku darto, iyada jooskeeda ha ciyaarto, iyada ninkay kuu keensato. ya hooyo macan adaa isxakumo, nin muslina shidiis waqti dukanaya, rabbi ka baqaaya, alla ku xiran, hooyo macan ii keen, ani wax kale ha ii keenin ku dheh. gabadhaada magaala irdi kaasoo gelis waa may nin muslina kuu keentay, si ninkay kuu keentay waad u diiday nin kala qoorta u gelisay. waa tan maanta maxaa ka dhashay? maanta gabadhan arrinta haysataa ee ka mid tahay maxaa ka dhashay marka maanta? maxay tahay dhibaatada? waxay tahay dhibaatada ilmihii ilaahay keena meeshaan oo ubadkaas kala siiyey 6 ciyaal, 6daas ciyaal intaan dhalaayatay qosol iyo farxadan ku dhalay idima dhaxaaya dhahdaa saxaabe. soo calool xumo maaha, qosol iyo farxad aan ku dhalay iyo kaftan iyo wada sheekaysi anii ninka i qabana dhexmare aan ilmahaas ku dhalay idima dhaxaaya tiri. mid walba wuxuu calool galaahay tiri, dagaal iyo kir iyo kacan oo ku jiray tiri aa ilaahay siiyay dhahday. dan oolaadeeda waan iskaaga faraxsanahay tiri, waan iska heystay dhahday. 6daas markii aan dhalay tan iigu yar 2 sano ee jirtay tiri, go-aan ayaan gaaray tiri inaana oolaad dambo aana dhalinay tiri. kawle liiga siin karaa ma ahanay tiri, in aan nin iyo naagtiisa ama noqoninay tiri, ninkan go-aan ayaan ka gaaray. bal arrintaas ila dhagaysta, go-aan ayaan ka gaaray tiri. dhakhtarkaan tegay tiri, waxaan ku dhahay tiri ma rabo ilmo kale in aan dhalo, cirbad igiliya. 10 sano cirbad ah ayaa isa soo diray tiri. almost waxay tiri gabadheeda 2 sano markay jirtay oo ogaaday tiri dagaalo igu qaaday tiri. dagaalka ana kama yareysanay tiri, kamana joojinay tiri, mana u nixinay tiri, bartiisaan ogala miisay tiri, bartiisaan ogala miisay tiri. shalay waxaan ahaayay tiri hooyo ilmeeda gadaal u fiiriso, oolaadeeda fiiriso, ku noqoto alla ilmaha idinkoo is dagaalay, wax walba igu sameeyo ama wax walba igu dhuftay tiri, intaan dhahay tiri aan ka tegi jiray tiri. markaa la waxay tiri go-aanan gaaro dagaalam diyaar u ahaayay dhahday. waa gubtay tiri, waa bislaaday dhahday. ya wuxuu rabo igula dhaqmaayay tiri, wuxuu rabo igula hadlaayay tiri, ixtiraam ma jiray tiri, wanaag ma jiray dhahday. haddaan aabahe u sheegay tiri ama hooyada u sheegay tiri, adigu unbaa qaldanay tiri, laguma fahmaayo. been ma aha, waalidka ninka bini-aadanka ah ayaga maysa dhalin, gabadhaadaa dhashay. gabadhaada inaad dhagaysato waxa ay ku dhexayso aad ay u qurux badan tahay xaqiiqatan. ilmahaaga adiga aad dhashay waxa uu ku dhahay ama waxa ay ku dhahayso, ama gabar ha ahaato ama wiil ha ahaado, caruurta ilaahay ku siiyey waxa ay ku dhahayaan waxa qurux badan inaad dhagaysato hooyo iyo aabo. ma aha ninka bini-aadanka ah shalaa barateen, laakiin gabadhan idinka ayaa dhalay. ya ninkaas saxan un ha dhihinaha, ma qaldamo waa ilaahay, wuu qaldami karaa, waa bini-aadan. carab iyo ilkaa iskugu dhow way isqaniinaan, wayna isgalaafsadaan. ma aha marka in aad soo taagnaato oo aad dhahdo ima gabadhaa qaldan. may ma aha taas. dhagayso gabadhaada dhibaatada heysata dareen waa la dareemi weyseen, waa la fahmi weyseen. waxay doontay ku kacday, wax allaala wixii doontay samaysay, wax allaala wixii afkeeda soo qabtay ku dhaqantay, wax allaala wixii rabtay samaysay. maanta maxaa ka dhashay? in ilmihii yaryaraa laga qaato, in ay gaalo gacanta u galaan, aana kugu dhaqan ahayn, kugu diin ahayn, kugu dal ahayn, kugu wadaniyad ahayn. wax ka xanuun badan maa jiro. ilmahaadiyaa la kaxeynayaa, kiniisadaa loo kaxeynayaa, doofaaraa la siinayaa, gariisaa la siinayaa, gariis doofaar waa doofaaraa la siinayaa, wixii la rabaa la siinayaa. maxaa ka dhihi kartaa? ma ka hadli kartaa? waa may. jooska adiga maba lihidbo, because waa haysan weyse. ka sheekeeye jooska adiga ma lihid, la-ana waad haysan weyse, kama hadli kartid. naag cadaana ubadkaagii la laafiyooneys ama nin cadaano dee subxaan allah. muslinaan nahay, aawa dhaqankeeni, aawa diinteeni macaaneed, aawa kala dambeynteeni ma laha. ilmahaas gabadhaas ma dayicinaan leeyahay, ee hooyadeeda iyo aabaheeda ka dayaceen. because ninay ku dareen, ninka ay siiyeen iyada ay ku dareen, ee guursatay ee meel la degtay. dhageysta saxaabay, ninkii guursaday oo meel la degay, dee ninka haba wey nin waxaa jiro wey ninka la sheegaayo
inuu kaa aqli badan yahay, inuu kaa degan yahay, inuu oo kaa xishood badan yahay, inuu adiga ku dejiyo, inuu ku maslaxeeyo waxa aad rabto oo ku sameeyo waay. ninka la siiyey maskaxda kama weyneen, qolofku ka weynaa, ma fahanteen? qolofka ayuu ka weynaa ayaan dhihi karaa. waxa ay tahay aan saas u leeyahay, ninkaas waxaan saas u dhahayo waxay tahay gabar yar ayaa la siiyey, gabadhan ayuu guursaday, ubad caloosha isku baniyaa ilaahay kale ka siiyey. ma aha inuu ku tunta marka waxaa la dharayga dabka saara maxaa kuleelka ka keeno, karka waay. digsi aan karkarin ma kululaana, ama karli dabka la saare oo aan soo karkarin ma kululaana, waa may, waa inuu soo kululaada kabacdin uu karkaraya. dabka maxaa ka yaraa bosh 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 uu diidaya. qofka bini aadanka ahna waa sidaas oo kaleeto, la-ana siday u aamusan tahay ee ilmaheeda u fiirinayso, ee u dulqaadanayso, ee u samreyso way ka dhammaanaysaa. waa bini aadan adigoo kale ah, samarka wuu dhammaanayaa. maxaa keenay inuu dhammaado? ninkaa keenay. samarka iyo dulqaadka wuu dhammaanayaa. maxaa keenay? asigaa keenay. la-ano gabar masaakiinahu wuxuu rabaa inuu ku tunto 90, inuu wuxuu doono kula dhaqmo, inuu canaanto, inuu ku qayliyo. asi ma dhalin, waa xaaskiisa. ixtiraam iyo wanaag iyo xushmad iyo qadarin unbaa kala dhexeysa maahane, ma aha everytime inuu ku qayliyo. asi ma dhalin. ilmaha aad dhashaad ku qaylin karin, macaado laahi naagaa qabto, waxba iskama gelin, waxbana kama quseeyaan. marka abaayo waxay tiri dhibaatada i haysata, waxay tiri maanta ilmahayga gacanta kuma hayo, maanta oolaadii ilaahay isiiyey tiri gacanta kuma hayo, oo gaal ayay gacanta ugu jiraanay tiri. alleh i abuurtay unbaa iiga soo celin kara tiri. weligay ilmahayga maana qaraacinay tiri, wax qalada ma aana kula dhaqminay tiri, ma aana ku qaldoominay dhahday, wax qalada ma aana dhihinay tiri. please asxaabi waan idin barayaa gabadhan walaasheen ah, videogeeda meel dheer cod dheer ya intaba ha gaaro. usoo duceeya abaayo in oolaadeeda ilaahay dib ugu soo celiyo, ee u yimaadaan caruurteeda dib ilaahay gaaladaas oga soo qaado. ilmaheeda may dhibaateenin, ilmaheeda dhibaato maysa u geysanin, iyada iyo ninka isqabay unbaa caruurta isku dhex dagaalay. waa fahanteen soo maha? iyada iyo ninkii qabay aa ilmaha isku dhex dagaaleen oo keliya. wiilka u roonaa ayaa iskuulka ku sheegay, maxaa asoo magaxa haysto, maxaa kuugu dhaca markii la dhaha, wuxuu dhahay hooyada iyo aabahe dagaalaa dhexmaray, fightinaa dhexmaray, way isdileen, booq ilaa xal way isdagaalayeen, ma aana seexanin, saak la adligeeda looga qaatay. bal ninkaas muxuu sameeyey marka? weyninka la sheegaya intaas miyaa marka? waa may. aawe marka asxaabay abaayo waxaan idinka codsanayaa ee idinka soo codsatay iyadane in aad usoo duceysaan in oolaadeeda ilaahay dib ugu soo celiyo, gaaladaasne rabbi oga soo qaado, iyada iyo oolaadeeda ee farxad ku wada noolaadaan. guri buuxaan shalay fadhiyay tiri, farxadaan ku jiray tiri, maanta waxba ma haystay tiri, cidlaan taaganahay tiri, kontarool ay ugu socday tiri, ninka waa layga saaray tiri, waa aan sheego waan dacweeyey dhahday, ninkan waa layga saaray tiri oo guriga hadda waa layga bixiyey tiri. hooyada iyo aabee unbaa waxay leeyihiin tiri ninka nin fiican oo ahaanaya adigaa qaldan. hooyada iyo aabee dhahayaane tiri wixii qaldanna allah garanaya tiri, ilaahana arkaya tiri, ilaahay subxaana qaadirka ah ha ka soo saaro wixii qaldan ama wixii kale tiri. please waa idin baryayaa abaayo usoo duceeya videogane, share ii dhaha, like-na ii siiya, comment qurux badanna hoosna ugu reeb. haddii aad hore noola joogtana comment qurux badanna la qaybso. abaayana iigu soo duceeya biidnillah in caruurteeda ilaahay dib ugu soo celiyo, gaaladana uga soo qaado. abaayo taasaan rajaynaynaa insha allahu tacaala. dhammaanteenna wanaaga aan isfarno, xumaantana aan ka tagno, samaha aan ku dadaalno. dhammaantiin xoogaan idin wada jeclahay. waxaan idin leeyahay dhammaantiin janalku waa janalkiina, ha iga iloobin ha laagta, waa muhiim, dhiirigelina ii tahay ya. comment qurux badanne qaybta hoose iigu reeb, waad ku mahadsan tahay. intaaba haddaad ii sameyso thank you aan ku leeyahay aboowe abaayo dhammaantiinba waa mahadsantihiin ya. abaayana usoo duceeya please, abaayo ha loo soo duceeyo okay.